السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة واسيهام waxaan hooyo haysataa afar caruur ah. Waxaan ka soo hijrooday oo aan ka soo guuray dalka Sweden muddo 6 bil ka hor. Waxaan rabaa inaan idin la qaybsado maanta tajribadeyda iyo tijaabadeyda aan u leeyahay in lagu dhalo qurbaha ilmo lagana la soo guuro. Haddaba aan ku bilaawno. wadamada Scandinavian-ka mase wadamada Europe waalidiinta Soomaalida waxay imaadeen 3 jiil ka hor. badankood waa laga yaabaa 4 jiil inay noqdaan, waa laga yaabaa 5 jiil inay noqdaan, laakiin maanta badanaa waxaa ku nool wadamada Scandinavian-ka waxa waay intay u badan yihiin 3 jiil. jiilka koowaad waa waalid ku dhashtay dalka Soomaaliya, ku koray, wax ku bartay, dhaqan, aadaab, akhlaaq, diin, waxaasoo dhan haystay, yaqaanay hab iyo farac awoowayaashiis oo ka soo dhaxlay oo ahayd in ilmaha si loo koriyo, yaqaanay familiga hab oo asiga u korsado oo u shaqeynaysa markaas. wuu guuray waalidkaas asigoo rabo in nolol dhaanto noloshii markaas Soomaaliya ka jirtay inuu ilmihiisu raadiyo. waalidkaas wuxuu watay caruur, wuxuu tegay wadamada reer galbeedka. waalidkaas markuu tegay wadamada reer galbeedka waa jiilkii koowaad asiga. jiilkii labaad waa ilmahan waalidkii oo watay. ilmahan waalidkaas oo watay asiga khibrad badan ma lahan. wadankii wax buu ka xasuustaa, laakiin khibrad iyo wax uu watay ma jirto. waxaa laga yaabaa qaarkood in xoogaa badii ay la tagto, in waxyar marada ay gaabsadaan, in timaha si ay u jartaan, in dhaqankii markaas wadankaas ay tageen ay xoogaa yar kuwa la qabsada iska dhigaan. qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ka soo horjeestaan oo challenge badan ay la galaan oo ay la dagaalamaan oo iskuuladii ay noqdaan dad caadifad badan oo diido waxa loo sheegayo. waxaa imaaday jiil saddexaad. jiilka saddexaad waa jiilkii ay dhaleen jiilkii labaad. jiilkan saddexaad waxaa la dhahaa Yasman. waa jiil yar wixii lagu shubtay iska qaadanayo, aanan aqoonin wax la yiraahdo dhaqan, aanan aqoonin wax la yiraahdo Soomaaliya, aanan aqoonin wax la yiraahdo diin, aanan aqoonin wax khibrad ah. jiilka saddexaad waa jiilka hogga iyo halaaga oo u yaalo. waa jiilka soo saarayo jiil afaraad. jiilkan ma jeclo inay doodaan, inay buuqaan, inay diin ka hadlaan, ma jeclo. jiilkan waxay tukadaan salaadaha ay ku dadaalaan maalinta Jimcada. iskuulada markii ay dhigtaan waxay dhahaan Jimcada waa tukanaa. bisha Ramadaan markii la soo galo way soomaan qaarkood. haddii xashiish la gadaayo way gadaan, haddii xumaan la sameynayo way sameeyaan. waa iska dadkaas waaye, surweeladoodii finaanadahoodii iska wataan gabdhaha, timahooda u qaawan. waa jiil aan xaaraan iyo xalaal aan kala aqoonin. haddaba saddexdaas jiil iskugu tagtay Yurub. saddexdaas jiil markay Yurub iskugu tagtay, jiilkii koowaad oo ahaa jiilkii keenay jiilkii labaad iyo jiilka saddexaadbo wuxuu sameynaa jiilkii koowaad inuu Soomaaliya si iska aado, in mar uu meeshii ka shaqeysto wax yar hadduu ka heli karo wax yar ka aruursado, inuu ilmihiisii maadaama ay u weynaadeen uu wadanka iskaga noqdo, inuu wuxuu sameyn karo uu sameeyo. hadhowtadii inuu wadankiisa iska aado, ama markuu weynaadaba ilmihiisa jiilka labaad ahaa inuu u imaado oo iyaga ay haayaan.
marka jiilka labaad iyaga wax dhib kuma qabaan waalidkood inay haayaan waalidkood inay daryeelaan dhaqankii wadanka waxa waaye dhaqankii xaggana way haystaan intana way haystaan iyaga waxa waaye labadii dhaqanba way haystaan hadii la dhaho in loo dabaaldego Christmas iyo waxaas iyo waxa laga yaabaa qaarkood inay u dabaaldegaan bisha Ramadaan inay xaflada dhigtaan u dabaaldegaan ilmihii inay dhalasho iyo adduun u dabaaldegaan in wax kasteetaba iska sameeyaan oo diintiina ay ku fiican yihiin oo salaadihii ay tukadaan oo meel kasta salaadihii ay ku tukadaan oo dad wanaagsan ay yihiin meesha dhaqankii wadanka ay imaadeen sidii u diidanayeen u dagaalamayeen markii dambe inay iska la qabsadeen ay dhaheen wax kastaba waa caadi marka saddexdaas jil Yurubska ugu tagtay jilkii saddexaad waaye jilka dhibaatada ay ka taagan tahay oo dhihi doona Britol Ilaahay ma nagu keenay waxa ka soo gaaray awowayaashayda diinta waxa ka soo gaaray awowayaashayda waxa maqli jiray aabahayga oo Soomaaliyo waxa maqli jiray aabahayga oo idhahaayo waxa sameey waa sababta igu kaliftay inaan Yurub ka soo guuro in aan idin soo hor fadhiisto oo aan idin sheego insha Allah idinkaga faa'iideeyo tajribadeyda iyo waxa aan ka ogahay arintaas aniga shakhsiyadeyda isku soo noqdo aniga shakhsiyadeyda waxa ku noolaa Sweden Trollhättan meel la dhahayo Trollhättan waxay 40 daqiiqo u jirtaa magaalo madaxda labaad ee Sweden iyo Göteborg waxay u jirtaa 40 daqiiqo haddaba waxa ku noolaa Trollhättan waxaan ahay arday wax baranayso oo baranayso xagga maadiga iyo xagga diiniga kadib waan guursaday markaa guursaday alxamdulillah waxaan isla markiiba yeeshay wiilkayga curad uurkiisa waxa la ii sheegay in aan caloosha ku sida wiil markaasna waxa baranay waxay ahayd maadigi iyo diinigi labadiiba waa isku wadi kadib waxa dhacday waxay ahayd in tafsiirka Quraanka Kariimka maalmaha kamid ah anoo dhageysanayo suuratu al-Imran ina dhageystay marwada al-Imran Imran xaaskiisi oo niyeysanayso inay ilmo dhasho subaxyada kamid ah ayadoo fiirinayso arkaysa laba shimbirood inay shimbir soo baxayo oo quudinayo shimbir kaleeto soo shimbirkaas kale markuu quudiyo inay niyeysanayso inay awlaad dhasho kadib markay niyeysato inay awlaad dhasho Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee ballan kula galayso in awlaadaas ay u hibeyn doonto beedkiisa masaajidka inay u hibeyn doonto oo ka qidmay doono awlaadaas masaajidka haddaba markaa dhageystay waxay ahayd nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la hadlaayo asigoo waa yeel weydiisanayo cimrigaas inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo siiyo awlaad nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam awlaad ula jeedada oo u rabana ee ahayd inuu awlaadaas uga tago uu dhaxlo diintii inuu ku anfaco awlaadaas oo qaado oo ku anfaco dadka uu ka tagayo qabiilka nabiyullaahi Zakariya iyo dadka uu diinta markaas u sheegay inuu awlaadaas ku anfaco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddana waxa dhageystay nabiyullaahi Ibrahim calayhi salaam markuu dhahayo rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a waxa isweydiiyay awlaada ma ula jeeda loo dhalaa mise waa iska dhalaa runtii maanan ogeyn waxa istahay like why nabiyashan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaad uga baryayaan xaaska Imran ee awlaad Ilaahay uga baryay haddana ay u rabaan in awlaadan ay anfacaan dadka ku xeeran inay dad noqdo dad diinta faafiyo inay noqdaan su'aashaas isweydiiyay waxa dhahay dadkan ayagoo ilmaha wali calooshooda galin ayagoo wali ilmihii qaadin ay waxay niyeysanayeen oo ay rabeen
in awlaadaas ay noqoto awlaad anfacdo dadka. So anoo taas la yaaban waxaa isweydii su'aal, adiga waay awlaadan u dhalay? waay sababta u dhalays maxaa waay? dadkii kaa horreeyay oo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaay ulajeeda ilmaha u dhalaayeen, adi laakiin wax ulajeeda ma ka lihid. So waay u dhalay ilmahan? waay foosha xanuunkeedii iyo dhibkaas iskugu diyaarinay ilmo u dhalay. haddana anigoo og bay-ada ku noolahay waxa ay tahay. So maalintaas waxaa qorsheystay ulajeedo oo keliya inaa ilmo u dhalo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka bariyay in awlaadan oo iiga dhigo awlaad ahludiin oo wanaagsan, anigana mid dadaasho, hooyo dadaasho. maalintaas waxaa go'aansaday inaa hooyanimadeyda bedelo oo aan noqdo hooyo wanaagsan oo u noqdo ubadkayga hooyo wanaagsan. kadib wiilkayga oo ii dhashtay, waxbarashadeydaa sii watay. maalin maalmaha ka mid waxaan dhiganaya waxay ahayd iskuulkii waxaa ku laheen wada hadal. macalimadii iskuulka waxay dhahday maanta waxaa ka wada doodaysiin oo ka hadlaysiin laba arrin. arrinta koowaad waxaa waaye dadka jinsigooda bedelo, dadka iska dhigo ayagoo naag ahay nin, ayagoo nin ahayne iska dhigo naag, iyo dadka guursado jinsigooda. tusaale nin guursanayo, naag guursanayso. So macalimadii markay nagu dhahda taasaa ka wada doodaysiin, waxaan dhahay okay. aniga waxaa istaagay safka dadka kasoo horjeedo. markaa istaagay aniga kow ii yeerto, waxay igu dhahdee waay dadka u diidan tahay, like waay u diidan tahay dadkan. waa aniga idii soo sheegay. jiilka labaad waa jiil jecel inay doodaan oo dadkan diinta ka dhaadhiciyaan, inay dadkan soo hanuuniyaan jiil rabo waay. jiilka koowaadne maasha allah iyagana waa dad jecel inay diinta dadkan u sheegaan, laakiin jiilka oo aan waxaas dhan kala jecleen waa jiilka saddexaad run ahaantii. So saas markay dhahdo waxaa dhahay sababta waay u diidan tahay igu dhahday. waxaa ku dhahay sababta u diidanaa waxa waaye because anaka muslin aan nahay. kow, diinteena ma ogolo. labo, caafimaadka qofka bilaadanka uma fiicno. qofka caafimaadkiisa inuu nin guursado, naag inay naag guursato uma fiicno. markaas waxaa usoo daliishaday waxyaalahan hadda afka ka sheegi karin. waxaa dhahay 3, qofkan ilmo ma dhalaayo. waxaa kaloo dhahay midda kaleetane qofka xataa jinsigiisa bedelayo. markaa usoo noqdo qofkan wuxuu qaadanaa waxa waaye daawooyin fara badan si hormoonadiisa uu la dagaalamo. haddii gabar ahayd jirkii, xabadkii, abuurka gabadha jirkeeda waa inay la dagaalantaa. codkii oo kale waa inay la dagaalantaa. waxaasoo dhan waa inay dagaal adag ee sameysaa. so waxaa dhahay waxaa la siinaa waxa waaye daawooyinka hortagayo in ay dhacaan waxaasoo dhan. taasna qofkii caafimaadkiisa uma fiicno. waxaa kaloo ka daran qofkan wuxuu galayaa operation oo galayaa. ninka operation oo galayaa, ninnimadaa laga saarayaa. waxaa lagu xirayaa qalab la sheegayo inay qalabka naagaha ay yihiin. naagtana sidoo kaleeto. so waxaasoo dhan ma fiicno. qofta dumarka waxaa ku jiro ilmo galeena ku jiro. ilmo galeenkaas haddee doorato waa laga bixinayaa. waxaasoo dhanna uma fiicno. so waxaa dhaa waxaasoo dhan ayadoo jirto qofkan bilaadanka like wuxuu dooranaa waay inuu waxaas dhibaatay oo galo. waxaa laga yaabaa qofkan naftiisaba inuu ku waayabo. macalimadii way igu xanaaqday. waxay tiri midda ilmo ma dhali karaan. yes, dadka labada jinsi isguursanayso ilmo way dhali karaan. tusaale waxay tiri adiga fasalka wiilkaaga yar, wiilkayga markaas wuxuu jira sanadii wuxuu jira, wiilkaaga yar ee dhahday haddii tusaale xanaanada uu la dhigto cunug ficiis oo iska dhaleen 2 aabe, cunigaas ma cunsuriye lahayd. markaas waxaa ku dhahay aniga cuniga xanaanada la dhigto horta dembi maba lahanba asiga, oo waalidkiisa labadan nin iska dhalay dembiga leh asiga dembi ma laha, waa ilmo yar. kow. 2, waxaa ku dhahay like adiga su'aala ku weydiinay si cunigan ku dhaleen.
waxay ugu dhahday cunugaa waxay ku dhaleen laba naag, labada naag isqabto waxay u tagayaan labada nin. markay isku tagaan saasay ilmo ku helayaan, ama ilmo waxay ka soo wadanayaan wadamada Asianka mise Africa, ama ilmaha dadka laga soo qaato, dadka wadanka degan, ama Soomaali ha ahaato ama Carab ha ahaato ama Swedishka ayagaba shaqsiyadooda dhexdooda ha ahaatee, ilmihii laga soo watay dadkan la siinaya. waa yaabe, waxaa ku dhahay okay, laakiin aniga soo xorriyad ma lihi. aniga xorriyadeyda ma aqbalay oo ma jecleysanay qof qoomkaas iska dhigay. never ever ma jecleysanaya ku dhahay qof asigaba shaqsiyadiisii isjeclaa waaye oo asaga is aqoonso waaye inuu nin yahay ama inay naag tahay. aniga waxa iigu qasabtay inaan aqoonsado, meesha ma taalo, mana aqoonsanaya ku dhahay, mana jeclaanay. taasaa naga dhex martay macalimadii. aan waa isku xanaaqnay, meeshaa kasoo tagay. run ahaantii meeshaas waxaa ku ogaaday wiilkayga markuu iskuul gaaro challenge-ga iyo arinta adag ee sugayso. waxa sugaya waxa waaye cunigii xitaa asigii haddii uu diintii barto in laga hor imaanayo oo aad loola dagaalamayo. haddaba waxaa bilaabo waxa waaye in aniga shaqsiyadeyda hadday tahay xag aqooneed, hadday tahay xag wax aqris, inaa wax aqriska aad ugu dadaalo, inaa barto dadkan waxyaalaha ay ku dheereeyaan, waxyaalaha ciyaalka ay baraan, liajli ilmahayga inaa ku badbaadsado, inaa barto tarbiyada ciyaalka, sida ciyaalka loola dhaqmo, sida ciyaalka loola hadlo, maxaa xaq u leedahay, maxaadan xaq u lahayn, maxaa ilmaha lagaaga qaadan karaa, maxaana lagaaga qaadan karin. in gurigeyga aniga iyo sawjkeyga aan ka wada fadhiisano oo aan ka wada hadalno waxa gurigeena sidaa ula ku dhaqmi lahayn. cunigan waxaa sugaysa bay-o, soo bay-adaa sugayso waa in dagaal la galnaa. dagaal weliba fudud ma ahan, dagaal adag waa inaa la galnaa. soo gurigeena waxaa ka dhigna waxa waaye oo ku dadaalnay in oo noqdo guri ilaahay subxaana wa tacaala digrigiisa lagu haayo. waxaa ku dadaalna waxay ahayd adduunyadeenana inaa qabsano, aan noqono dad wax barto, dad shaqaysto, dad gaariyaal wato, dad horumar gaaro, dadkii bulshada caawiyo oo dhex galo. aakhiradeenina inaa ku dadaalno, inaa gurigeena ka joojino muusiga, inaa gurigeena ku dadaalno inaanan caay iyo filimaan xunxun iyo waxaasoo dhan aysan ka jirin, oo uu noqdo gurigeena guri ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusaayo. in ku noolaana adkaarta, in subax markaa soo kacna adkaarta aqrisano, galabkii adkaarta aqrisano, quraan gurigeena ku aqrisano, quraan gurigeena ka shidno, ilmaheena hadal wanaagsan ku dhahno. wax kasteeto masaajidka inaa ku xirnaano, ilmaheena ayagoo sanad jiraan aan masaajidka ku bilaawno inaa geeno. wax kasteeto oo ku dadaali karno inaan la imaano. sawjkayga ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan ha siiyo. taas wuu ila qaatay, wuxuuna ahay aabo wanaagsan run ahaantii xag meel kasteetabo. laakiin aniga shaqsiyadeyda markii intaana guursan ka hor waxaa iska ahay qof dhalinyaro muusiga iska dhagaysato, xijaabka mar xirato, mar aan xiranin. laakiin markii aan arkay bay-ada aan ku noolahay, ilmana aan ku dhalooyo, run ahaantii go-aan cadaa qaate. hooyadana waxaa laga rabo waxa waaye ilmaheeda daraadood, ayada haddaysan isbedeleynin, ilmaheeda daraadood inay isku bedasho, in ay ku dadaasho in ilmaheeda sidii dhaqan wanaagsan u bari lahayd ay ku dadaasho. waayo guriga markii la dhaho aabaha ilmihiisa tusaale u yahay markii la dhaqanka qoyska iyo banaanka laga hadlaayo. laakiin
ilmaha intay yaryar yihiin cidda saameynta ugu weyn ku leh oo badanaa guriga joogto oo ilmihii nuujinayso oo ilmihii u dhow waa hooyada. soo hooyada haddii habeenkii ee aroosku soo daahayso, haddii muusiga ayada uga horeyso, haddii ayada xijaabneen, haddii ayada xumaantii ilmihii uga horeyso, ilmahaas way adag tahay si uu aabba ku tarbiyeeyo, lianna hooyo ayaa wax tarbiyeyso. aabbaha waa caawiye, aabbaha waa banaanka markuu ilmaha soo weynaado tusaalaha ay ku daysanayaan, laakiin guriga cidda ilmaha ku tarbiyeyso oo tarbiyada wanaagsan ay ka qaadanayaan waa hooyada. hooyo adag oo aan jilicsaneen oo aqoon raadinayso, wax baranayso, iyo hooyo dadaalayso unbaa soo saari karta awlaad wanaagsan. aniga marka waxaan ku dadaalo waxay ahayd in gurigeyga iyo bay'ada ilmaha ay ku korayaan aan wanaajiyo. masaajidka inaan ku xirnaano, xataa masaajidka hadduu naga dheer yahay, masaajid waxaa jiri magaalo madaxda labaad ku yaalo aadi jirnay, xataa inaan aadno, inaan ilmaheena waqti siino, inaan la cayaarno, inaan anaga ayaga saaxiib la noqono oo keliya. saaxiibo kale inaanan banaanka ka yeelanin oo aanan saaxiibo kaleeto aanan waqti la qaadano, waqtigeena ku beerdareenin, ee ilmaheena waqti gelino oo ayaga aan waqtigeena 100% ayaga aan gelino. alxamdulilah taas way noo shaqaysay intay ilmaheena yaryaraayeen. laakiin ilmaha intay yaryar yihiin oo xanaanada ay dhigtaan oo guriga ay ku joogaan oo 7 sano ay ka yar yihiin, waxaasoo dhan way ku shaqaynaysaa. sababta aan idinku sheegayaana midaas laakiin ilmaha markuu bilaabo school waxaasoo dhan kuma shaqaynayso. si kasta u dadaashid iyo si kasta u wanaagsan tahay kuma shaqaynayso. aan usoo noqonay qisadeena. wiilkayga markii hore markuu dhashtay oo gaaray sanadkii 1 kumaana bilaabin xanaano Swedish laakiin waxaa geeyay wax la dhaho dog mama. dog mama waxa waaye xanaano qof guriga uga furan. xanaanadaas geeyay waxaan u geeyay waxay ahayd gabar muslim oo carab si dhaqan wanaagsan iyo diintii cunugii ugu barbaaro. gabadhii carabta u geeyna alxamdulilah. kadib haddana waxa u geeyna gabar Soomaaliyeed, kadibna waxa geeyna xanaanadiisii. markii 1 marka waxa ku bilaawna waxay ahayd ina 3 sano markuu soo gaaraba quraanka ina u bilaabo, luqadda farta carabiga ina baro, adkaarta ina baro, wax kasteet laga rabay. 5 sano markuu soo gaaray uu bilaabay xanaanada, maadaama 6 sano uu bilaabi doono school. wuxuu ahaa qof dhisan maasha Allah, qof quraanka juska labaad ku jiro, qof luqadda carabiga ka yaqaano, luqadda Swedishka ka yaqaano, xisaabta yaqaano, luqadda Soomaaligana active ku maasha Allah. kadib wuxuu bilaabay xanaanadii. xanaanada markuu bilaabay 5 sano jiray. xanaanada alxamdulilah wax dhiba kale ma kulmin. waqtiyada ay leeyihiin Christmaska ama Halloweenka ama waqtiyada sanadka cusub ay u dabaaldegayaan, badanaa waxa sameyn jirna xawa in anaga guriga u joogno oo aan uga baaqano shaqadeena ama waxbarashadeena, waxaas aan gacanta ku hayno ina uga baaqano labadeena waalid aan cuniga guri ku heysano. haddii anaga mashquul nahay, alxamdulilah meeshas waxa joogeen waalidkayga iyo walaalahayga iyo dad badan oo qaraabay alxamdulilah. taas way ii fududeed marka. kadib cunigii wuxuu bilaabay galaaska eber markuu 6 sano gaaray. galaaska eber markuu bilaabay, galaaska eber Swedish waxa waaye cuniga markuu 6 sano gaaro wuxuu bilaabaa galaas la dhaho eber. wuxuu u dhaxeeyaa galaaska 1 iyo xanaanada. waana galaas oo ay tahay laazim. xanaanada cunigaaga waa ka warwareeji kartaa. xanaano Soomaaliya geen kartaa, dad guri kuuga haya u dhiiba kartaa, adaa guri ku haysan kartid, waa warwareegi kartaa. laakiin galaaskaas eber markuu cuniga 6 sano gaaro waa laazim inaad geysid. maalinna ma baaji kartid haddaadan dan muhiima lahayn oo aadan sheegaynin cuniga guriga iskagama haysan kartid, ma la ogolo. kadib galaaskaas markuu bilaabay caqabadihiina way bilowdeen. macallimiinta iskuulka kulan ay nala sameynayaan, waxay leeyihiin cunigan maasha Allah waa cunig dhisan, waa cunig Swedishkii wadanka u dhashtay ilmaha ee dhaleen ka horeeyo, waa cunig oo akhlaaqdiisa ay fiican tahay, waa cunig ilmihii dhan hogaaminayo, ilmihii oo fasalka la dhiganayo, cunig la sheekeysanayo, hadalka u qaybinayo, cunig aad u fiican oo hay maasha Allah. laakiin taas miya maadaama ilmaha oo hogaaminayo
waxaa la saaray culeyska la saaray maxaa waaye macalimaddiisa maalin kulana la lahay waxay igu tiri cunigaaga wuxuu jecel yahay kalarada gabdhaha wuxuu jecel yahay jijimaha gabdhaha waxay xirtaan waxyaalaha qoorta wax fiican waaye okay so taas wax baa iga soo dhex baxay in cunigan asigoo yarbo lagu dhiirigelinayo inuu qaybtii gabdhaha u bato midda kaleetana waxaa waaye waxaa lagu bilaabo bisha ramadaan soo gashay waxaa la dhahay bisha ramadaan lama ogolo in la soomo so waalidkiina haddii soomaan idinku dhahaan waa soomi kartaan ma soomi kartaan bisha ramadaan waa mamnuuc inay ilmaha soomaan adiga daawanayo caqligaada ka shaqaysii cunug yaroo 6 sano jir ah yaa waay hooyada amrays inuu soomo yaa waay run ahaantii markuu ii sheegay waxaa ku dhahay aniga ma ku dhahay bisha ramadaan soomi kartaa maya maxay ku imaatay bisha ramadaan ma soomi kartid wuxuu yiri sababtay ku imaatay waxa waaye ilmaha dhana loo sheegay waxaa la dhahay bisha ramadaan ma soomi kartid waa si dabagal arintaas waaye aniga wadanka waxa ii joogo hooyaday aabahay aniga awrado ah wadanka waxa joogo walaalahay oo dhan soo walaalahay la sheekaystay mid yar oo meesha jooga iiga sheekeeyay iyo kuwa badan bisha ramadaan markasta markay soo gasho ilmaha yaryarka oo dhigtaan fasalka koowaad galaaska eber aadhe ilaa iyo fasalka 9aad waxaa la leeyahay maalin kasta oo bisha ramadaan lagu jiro ma soomi kartid lama ogolo soon aabahay hooyada hadee ku dhahan soon ma soomi kartid Sweden ilmaha baahiya u dhimanayaan hadee soomaan ilmaha wax ma baran karaan ma soomi kartid so cunugeyga markasteeto markii saas lagu dhaho uu yaray 6 sano jir ma soomaayo laakiin way soo socotaa ilaa 9 sano galaaska 9aad uu ka gaarayo da'da 16 sano waxa ku soconaysa ma soomi kartid hadaba 16 sano cunug la dhahayo 16 jir la dhahayo ma soomi kartid Sweden dadka yaqaan way yaqaanaan cunada ilmaha cunada waa free schoolka bixinayo so cuniga markuu dhaho cunna ma rabi gurigiisa cunna kama soo qaadanayo cuniga weyn ee 13 jirka 14 jirka 15 jirka ilaa 16 jirka markuu dhaho cunna ma rabi aniga waa soomanahay waxa la leeyahay ma soomantahay ha yaa ku soomsiye waalidka ma ku soomsiye maya hadduu dhaho waalidkaya isoomsiye waxa laga yaabaa cunigaas in waalidkiis laga qaato oo la dhaho sharciga ku xadgudubtay laakiin ilmaha badana waa ilma aqli badan ma sha Allah waxay dhahaan waalidkeena ma dhihin ma sooma anaga iska soonnay ilmahane markay qurbaha joogan ma sha Allah waxa waa ilmaha wadanka ilmaha qurbaha isku mid maahan ilmaha wadanka waxa laga yaabaa inuu biyo yar la dhuunto iyo inuu waxa laga yaabaa laakiin ilmaha qurbaha lagu dhalo waa daaciyaal yar waay diinta inay ayaga faafiyaan jecel yihiin ma sha Allah kadib cunigi wuxuu dhahay waxay leeyihiin ma soomi karti ilmihi waa laga sii dhaadhicina ilaa dugsiga sare uu ka gaarayo taasi waa taas waxa ku soo hartay cunigii markuu gaaro diintii markii la gaaro hadda ka hor wiilkayga ay yimaadeen wuxuu igu dhahay hooyo iskuulka waxaa lahayn waqti waxaa wada lahayn aan wada qaadan jirnay aniga caruurtaydo dhan odaygayga miiska wada fadhiisanaynaa waxa ka sheekaysanaynaa qof kasta maanta wuxuu soo qabtay so wiilkayga wuxuu ii sheegay wuxuu dhahay hooyo maanta iskuulka macalimadda waxay igu dhahday mataqaanaa hee way igu qaylisay aad igu qaylisay ila dagaashi maxaa soo bisaa ku dhahay macalimaddaasne waa macalimad carab ah xasuusta macalimadii hore ay ku dhahay iskuulka aniga waxay igala dagaalayso waxay ahayd arintan oo dadkan isbedela iyo waxaas waxay ahayd macalimad Yurubta jajabka ka soo jeedo soo macalimadan kaleeto wiilka is haystaan waa macalimad carab ah dadka badanaana qurbaha waxa ku arkaysaa waxa way dadka soo galootiga oo wadanka u dhan aad waxa way dad waxa way istutusaayo dad waxa way iyaga dhan waxa way dad oo kaanama cadaankaas dan badan inay ka leeyihiin istutusinayaan sharciyadii ku adag yihiin soo marka naagtan carabta حتى معلمات أميسان هين معلمينتي عاون جرتي waxay ku dhahday idageyso wiilow wiilkayga Axmed haldaha Axmed
ma soomi kartid waxay ku dhahday kelmadii soonkan iyadii ku jirto waxay ku dhahday kelmadan maanta dhan aa ku haysid oo subhanallah 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 kelmadaas markasteed aan waa jeclaa jira marka afkayga nashiido oo subhanallah subhanallah shidan jira markasta marka shaqada guriga qabanayo subhanallah subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakiil aadii jira soo kelmadaas aa dhahay markasteed oo afkayga ka dhigi jira cunigi uu bartay asigana wuxuu bilaabay markuu wax qabanayo markuu wax mooleenayo markuu wax qorqorayo inuu ku celceliyo subhanallah subhanallah macluumaadii oo maanta waxay dhahday meeshan lama ogoladin iskuulka lama ogoladin soo subhanallah hasbunallah aa ku haysid ma la ogolo ma dhihi kartid wuxuu dhahay marka macluumaadii way igu xanaaqday way iganaaxday waxay igu dhahday ma dhihi kartid waxaas ana waxa ku dhahay subhanallah only 6 sano jirtaa 6 sano la jirtaa maxaa waay macluumaadda subhanallah hu ganaaxiiso kelmada dhahday waxa la rabaa cunigan iskuulka inuu ku tukado waxa la rabaa inuu ku soomo beritoole waxa la rabaa inuu quraan ku aqristo haddana subhanallah loo diidooya lagu ganaaxooya wuxuu dhahay macluumaadaas way ganaaxday waxay dhahday iskuulka diin looma ogolo ma dhihi kartid ayagoona dhahayo diimaha oo dhan way siman yihiin qofka diintiisa xoro u yahay iyagoo anaga nagu dhahayo waalidiinta ku dhahayo haddana awlaadin waxay leeyihiin diin ma la ogolo iskuulka wax diin la yiraahdo lama ogolo cunigan markii waqtigii aan dhihi lahay salaada tuko waa markuu 7 sano gaar waa sanad kadib salaada amri doona inuu tukado hadda wuu tukadaa masaajidkii wax kasta waa geeyaa laakiin sanad kadib waxa rabaa inuu salaada bilaabo oo toos u tukado salaada haddana waxa lagala dagaalamoyaa hal kelmado subhanallah aniga waxa dhahay run ahaantii meeshan horena go'aankeyga wuu ugu jira maskaxdayda inaanan meeshan ilmahayga ku korin markii dambana waa yaqiinsaday waxa dhahay meeshan ilmo fiican kama soo saaraysid ilaahay subhanahu wa ta'ala meelka risq badan ha ku siiyo laakiin wali go'aan ma ana gaarin haddana maalin kaleeto oo ii imaaday wiilkayga wuxuu igu dhahay hooyo waa markii iigu darneed markaan wuxuu igu dhahay hooyo soo ma idhihi jirin ilmaha familiga waxay ka kooban yihiin aabe iyo hooyo ilmo iska dhalay waa aabe iyo hooyo iyo ilmahooda iyo qaraabadoodii wixii markaas la joogo soo ma idhihi jirin waxaan ku dhahay wuxuu dhahay haddaba hooyo waxaa ku sheegaya family kama koobno hooyo iyo aabo oo keliya iyo ilmo haye maxay ka kooban yihiin family waxay ka kooban yihiin oo dhahay nin iyo nin isguursaday naag iyo naag isguursaday iyo nin iyo naag oo ilmo iska dhalay marka family taasoo ka kooban yahay dhahay kadib ana ilmahayga aad ugu sheekeyn jiray soo marka maalintaas laakiin waxaan dareemay cabsi waan cabsaday lianna hadda ku dhaho hooyo nin iyo nin isma guursan karaan naag iyo naag isma guursan karaan waxaa lagu halaagay qoom lood haddaan ku dhaho halis baan ku jiraa lianna wiilkayga maasha Allah waa cunig la dooday macallimiinta hadalkii aan ku dhaho sida u dhahay oo ku dhaha haduu rabo soo waa cabsaday cabsi weyn ay gashay aada u cabsaday waxaa la tashta gabdho markaas aan ku xirnaa garoob waxa ku dhahay sidaas ay haysato maxaa suubiyaa waxay ugu dhaheen waxba ha ku dhihin hadhihin qoomuluuda lagu halaagay hadhihin waxbana ha ku dhihin shib iska dheh ma cunigayga aniga aa dhalay oo jismigayga laga soo gooyay aanan u sheegi karin waxbo liajli ka cabsanayo dad inay iga qaataan waa wax la yaab leh run ahaantii waa wax la yaab leh haddaba arrintaas sidee u socotay waxaan idinku dhahay waxaa sameyn jiray dadaal aad iyo aad u fara badan laakiin cunigii wuxuu bilaabay galaaskii eber kadibna wuxuu bilaabay fasalka koowaad waxaa ogaaday
wixii dadaal aan sameynay oo dhan inay halkaas ku dhamaadeen. masaajidka geey, salaada masaajidka ku xir, wax kasteeto waxba inaysan taraynin. sababtaa ku dhahayna waxaa waaye cunugii qur'aanka juska labaad oo maraayay qur'aankiisii hoos u sii dhacay liana maskaxdiisii already waxa ka buuxsama music iyo waxyaalo ay barayaan maanta oo dhan. maskaxdana laba wax ma wada qaado. labo, salaadii markuu gaaray cunug yaris waay markaa salaadii ku abaabi maaga duhurka markuu imaado wuxuu leeyahay hooyo salaad daal waay ma tukan kari. si kastee noqoto waa beri jire laakiin waa niyad jabay, aada u niyad jabay lianna qurbaha tusaale waxaa idinkugu soo qaadaa 5 tiir ee islaamka. tiirka koowaad ee islaamka waxaa waaye inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad rumaysid. tiirka koowaad ee islaamka ma yaalo wadamada reer galbeedka. ilaahay ma aaminsano, mana aaminsano inuu jiro. waxaa lagugu bilaabaa iskuulka marka cunuga oo yar yaha lagu soo bilaabaa inuusan ilaahay jirin. taas tusaalaheeda idin siinaa. waxaa idinku dhahay walaalahayga yaryarka ah qurbaha jooge. wiil yar oo walaalkiya maalin anoo la sheekeysanayo wuxuu dhahay abaayo waan necbahay iskuulka, aada u necbahay. waxaa ku dhahay maxaa u necab tahay? wuxuu dhahay macalimadda iskuulka maalin kasta way idaadaansane, way ila dagaale. ilmaha yaryarkane waxaa waaye clever waay maskaxdooda, way caqli badan yihiin, waxay isku dayayaan waxaa waaye macalimadan inay hanuuniyaan. marka wiilkan yarka wuxuu dhahay abaayo macalimada markasta waxay isku daydaa markasta igu dhahdaa ilaahay ma jiro. ilaaha aaminsan tahay ma jiro. ilaahay aaminsan tahay hadduu jiri lahay Falastiin muxuu dagaal uga socdaa Syria, wadamadaas oo dhan muxuu dagaal uga socdaa. maxay Afrika baahi u tahay, Yurubna maxay qani u tahay. hadduu ilaahay jiro dadka muslimiintu caabudayaan muxuu kii kale wax ugu qabo waaye. waa cunug yar oo 11 sano jir wax saas lagu dhahayo. waa cunug yar. subxaanallah. wallaahi markaa maqlay caloosha dhan ay huri jirtay. wuxuu leeyahay marka la dhaho ilaahay waxaas oo dhan wuxuu ula jeedaa imtixaan. wuxuuna fiirinayaa keenna u dul qaadan karo. adduunkaana waxaa iskale qofka ku dadaalo. wallaahi maasha allah wuxuu ahaa wiil yaro aad u caqli badan. wuxuu dhihi jiray adduunkan waxaa iskale qofkii ku dadaalo. laakiin anakana aakhiro jannadaa leenahay. waxay dhihi jirtay maya ninka aniga ma aaminsan inuu ilaahay jira dhihi jirtay. waxaa aaminsanahay ninka cirka joogo beenlidi ka dhaadhiciy inaad taa aaminsanahay. subxaanallah. cunugii yariska maalin kasta uu niyad jabi jiray. waqti kasta dacwadaa laga soo gudbi jiray. lianna waxa dacwad looga soo gudbina waxaa waaye cunugan yarka ma u dul qaadan kariyo waxay naagtan ka hadlayso. wuu la dagaalamaa, jirkiisaa gubanayo, ma uu rabiyo inuu waxaan ay kula doodo. ayadana way kula doodi jirtay. imtixaanka markii la qaadayo cunuga markuu imtixaanka ay qorayaan ilmaha fasalada 3, 4, 5 diimaha, cunuga ma dhihi kariyo diintan waxaas aaminsantahay. waxa buug loo aqrinaa. waxaa la leeyahay islaamka waxaanu aaminsan yahay, kirishtaanka waxaanu aaminsan yahay, yahuudda waxaanu aaminsan tahay. laakiin imtixaanka markii cunuga loo keeno ma dhihi kariyo waxaan yahuuda aaminsan mase waxaan kirishtaana aaminsan. ma dhihi kariyo. waa inuu dhahaa sidaan. su-aalaa loo keenaa tusaale. waxaa la leeyahay ciise waa inankii ilaahay. iyaga kirishtaan maahan laakiin taasay ku keenayaan. waxay leeyihin ciise waa inankii ilaahay. subxaanallah. cunugii ma dhihi kariyo kirishtaanka waxay dhahaan ciise waa inankii ilaahay. way ku ridayaan imtixaanka. waa inuu dhahaa ciise waa daash waa inankii ilaahay. waa inuu dhahaa. ma dhihi kariyo daashtaas. ma dhihi kariyo kirishtaanka waxay aaminsan yihiin inuu yahay inankii ilaahay. hadduu sidaas ku qoro imtixaanka waa lagu dhacsiinaa.
soo cunugii waxaa laga dhigaa wuxuu asiga shakhsiyadiisa aaminsan yahay. taasna aniga iguma dhicin, laakiin ilmahayga way sugaysay. ilmahayga kumaysan dhicin, laakiin waa wax sugayso oo ay la kulmayaan mustaqbalka haddii aan waddankaasii joogi lahay. tan labaad, dhalinyarada iyo shahwaadka. dhalinyarada iskuullada waxaa laga baraa waxaa waaye dareenkooda siday u maamuli lahaayeen. wiilal badan oo Soomaaliyeed waalidkood xiriir lama lahan. waalidkood maadaama ay xiriir la laheen, waxaa laga yaabaa inay sameeyaan kufsi ama laba qof oo waa usoo noqonayna taas. dhalinyarada waxaa la barayaa waxaa waaye sidii ay ku nidaami lahaayeen shahwadooda. wiil yar oo waqtigaas ku jira 15 sano ay iga sheekeenayo wuxuu yiri iskuulka waxay igu dhaxeen ay bareen sida shahwadeyda aan ku sameey lahay. waxay igu dhaxeen hooyada lama damco, walaasha lama damco, waa wax fiican haye eedada lama damco, laakiin waxaad damci kartaa qof kasta oo wax la sameey kartaa, qof kasta naag kasta oo ku ogol, naagtii ku ogol. waalidkii xiriir lama lahan ilmihiisi oo ma dhihi kariyo waa xaaraan, waxaan waa xaaraan ma dhihi kariyo. soo cunugii markii lagu dhahay qof kasta oo ku ogolaa wax la sameey kartaa, haddii qof ku ogol aaweysidne waxaa loo keenaa runaatii waa ka xumahay inaa adeegsado waxyaalahan, laakiin waa ku qasbanahay si aad u fahantiin inaa kugu sheego. waxaa loo soo qabanaa barkintaasoo barkin duf leh. waxaa la leeyahay barkintaa dufta leh waxaa ku sameey kartaa waxa u baahan tahay. waxbaa niyeysanaysaa, soo wixii aad u baahan tahay ku sameey kartaa. cunugii waxaa la barayaa siigaysi asoo yar oo hadda leeqaan gaarin. okay, kadib sheekada way soo socotaa. ilmaha ayagoo dhaqankoodii la bedelay, shakhsiyadoodii la bedelay, noloshoodii la bedelay, fikirkoodii la bedelay, waxay bilaabayaan inay aadaan dugsiga sare. sidii soconayso jaamacadda. haddaba cunuga maxaa ku sugaayo? jaamacadda waxaa ku sugaa waxa waaye macallin mulxid cunuga marka waxaa idinku dhahay jaamacaddu aadayaa. jaamacadda goormuu aadaa? jaamacadda wuxuu aadaa asigoo shakhsiyadiisa dhan lasoo baabi'iyey, diintiisa lasoo dhameeyey, lasoo aaminsiiyey waxay bulshadaas aaminsan tahay. okay, wax kasta la yihiin dhahaayo maalinta jimcada masaajidka aadaa iyo bisha ramadaan la soomaay iyo diinta dhan ee ka muuqataba maalinta jimcada iyo bisha ramadaan kaliya. markuu dugsigii sare aado, haddana dugsigii sare waxaa ku sugaayo macallin mulxid loo soo tababaray sidoo qofkan ula doodi lahay, uga baabi'i lahay kistaan yartu aaminsan yahay. maalintan jimcada oo salaada aaday iyo bishaan ramadaan uu soomaayo, macallin meesha ku sugaayo sidoo uga baabi'i lahay jaamacadana ku sugaayo. haddaba jiilkaas waa jiilkii saddexaad. jiilkii afaraad ilmaha dhalaan muxuu noqonayaa? jiilkii saddexaad wuu isdhiibay. jiilkii koowaad asiga wadankii oo ku noqday ama wuu gaboobay oo ilmihiisu la joogaa. jiilkii labaad asiga wuu duqoobay, hadduu rabana wadankii oo ku noqonaa, hadduu rabana meesha duqooshinka ilmihiisa geynayaana waxay leeyihiin adiga duqaa noqotay, waxa waaye anaga mashquulkeena naga baabsan. waa jiilkii labaad, jiilka meesha duqooshinka la geynayo, meesha duqooshinka la geynaa. jiilka saddexaad haddaba wuxuu dhalayaa Yurub. haddaa ka tashaweyno jiilka afaraad wuxuu noqonayaa, ilaahay subxaana wa tacaala naguma keeno, laakiin waa waxa maanta arkoono. jiilka afaraad jiil aan aqoonin luqadda Soomaaliga, aan aqoonin waxay tahay diin islaam, aanan aqoonin wuxuu yahay dhaqan, aanan aqoonin Soomaaliya iyo waxay ay tahay. dhahaayo aabayaashayda Soomaali ahaan jireen, adiga maxaa tahay? aniga Swedish ahay, aniga Canadian ahay, aniga Hollandees ahay, aniga sidaas ahay.
wuxuu noqonayaa jiil dhaho aabahay wuxuu ahaan jiray muslim, wuxuu aadi jiray salaada masaajidka, salaada jimcada wuxuu aadi jiray masaajidka, aabahay ahaan jiray muslim. marka waa sababta igu kaliftay inaa go'aan cad qaato, inaa go'aan ka qaato in aanan maanta fiirin laakiin aan fiiriyo waxa soo socda. arinta kaleeto ee igu kaliftay inaa Yurub ka soo guuro waxa waaye arinta hadda socoto oo quraanka la gubaayo. ilmaha waxa ku tarbiyeenayna inay quraanka bartaan, inay xifdiyaan, inay maasha Allah ku dadaalaan. kitaabka quraanka ilmaha waxa bareena lama saaro dhulka, lama dhigo meel ka hooseeyo, laakiin quraanka sharaf iyo qadarin waxa la saaraa miiska ama waxa la saaraa meesha ka koreyso, meel ka koreyso, madaxa ka koreyso la dhigaa. waayo ixtiraam iyo qadarin u heena way hadalkii Allah subhanahu wa ta'ala. laakiin cuniga ku koro wadamada reer galbeedka wuxuu arkayaa u jeedaa kitaabkii uu sasdan u qadarinayo oo hortiisa lagu gubaayo. cuniga xaaraanta iyo xalaasha adika ma aad reebin ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ka reebayo u diidayo. kitaabkii marjici qofka muslimka oo u noqonaayay meeshii qofka muslimka uu asal ahaan uu salka ku haayay waa hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxa la dagaalamayane waa intaas, waa quraankaas iyo quraankaas xifdisanahay oo quraankaas aan aaminsanahay inuu yahay hadalka Ilaahay. intaas la dagaalamaa. cunigi qadarintii iyo ixtiraamkii quraanka uu u haayay dhan wuxuu arkoyaa maalinba maalinta ka dambeys quraankii lagu istaagsan yahay, quraankii masqusha lagu tirtiraayo, quraankii la gubaayo. waxyaalaha ka socda reer galbeedka waaye. cunigi ixtiraamkii oo u haayay quraanka tartiib u baabi'aysa, li'anna qofka bil aadanka waxa uu arkayo lagu soo celcelinayo uu qaadanaya. arinta kaleeto waxa waaye tarbiyada. waxa kale ku arkay wadamada reer galbeedka waxa waaye tarbiyo laga badbadinayo, tarbiyo aad looga badbadinayo. ilmo boqor iyo waalid adoon ilmahaagi adi aad dhashay ayaa waxa u noqonaysaa adoon, asigana wuxuu ku noqonayaa boqor. hadda ka hor waxaa jirta course qaadanaya, course-kaas oo ahay Faraldarar Kuniskop tarbiyada awlaada. sida awlaada markaa tarbiyanaysid habka Soomaaliya loo korin jiro awlaada iyo wadamada reer galbeedka habka ilmaha loo koriyo isku si maahan. waxa waaye waa farqi weyn u dhaxeeyo. xagga tarbiyada markii laga hadlaayane wax badan oo kamid xagga islaamka ee waafaqsan yihiin. anaga Soomaali ahaan wax badan oo kamid waxa waaye cunfi, dagaal, dil, ilmihi wax badan tarbiyada wax badan qaldan. laakiin ayaga markii laga hadlaayo ilmaha si ula hadlaan, sida degan, sida ula sheekaystaan, sida waqti u galiyaan, cuniga markay la hadlaayaan jilbaha jibsadaan, indhaha ka fiiriyaan, waxaas oo dhan waxay waafaqsan yihiin habka diinteena islaamka ee ilmaha u tarbiyeyso. wax badanne way khilaafsan yihiin run ahaantii oo way ka badbadiyaan. marka waxaa jirta waxay ahayd naag Swedish oo course na siinaysay. course-kaas oo ahay habka waalidka ee u tarbiyey lahaayeen ilmahooda. naagta waxay dhahday Yurub maanta waxay maraysaa dhahday xaalad aad u xun. Yurub waxay maraysaa heer tarbiyada ciyaalka laga dhigo meel aysan joogin. ilmihii waxa laga dhigay dhahday inay yihiin kaanama boqoriin, waalidkana inay yihiin adoomo iyaga ee leeyihiin. li'anna maalinba maalinta ka dambeysa sharciyo waxa la soo rogayaa waalidkii ilmihiisa iska horkeenayo. waalidku waxa leeyahay waxaas ilmahaaga muu sameyn kartid, sidaas ma sameyn kartid, kaas. ilmihii iyo waalidkii sharciyo iska horkeenaya la keenaya. cunigiina maalin kasta waxa lagu aqrinaa waxa waaye waalidka kulama hadli karo, waalidka saan kuma sameyn karo, waalidka hadii wax yar aad dareentid numberkaas soo waca. waxay dhahday Yurub waxay maraysaa xaalad aad u adag xagga tarbiyada markii la dhaho. waana arkaani
telegramka 2 sano iyo bar ka hor aan kusoo biiray sanad iyo bar ka hor adi 2 sano iyo bar ka hor aan kusoo biiray soo sanad waxaan sameynaa waxay ahayd waalidiinta fiirinayay group ku jira oo tarbiyada carruurta looga hadlo soo adi sanadii bar ka hor waxaa bilaabay inaa waalidkii koorsooyin siiyo inaa waalidkii u sheego wixii xaq u leeyihiin waxaysan xaq u lahayn sida ilmaha loola hadlo sidaan loola hadlin waxaas oo dhan soo run ahaantii markaa bilaaba kooraskaas waxaa ii furmay albaabo aanan awal ii furnayn waxaa ogaaday waxaas hadal markii lagugu dhaho saameyn badan kuguma yeelanayo laakiin markuu ku imaado qofku dhahayo anigay xaaladaas i haysataa markuu ku imaado waxaa leedahay wow ilaan wixii runay aheedaa leedahay indhaa ku furmaayo aan kuu fursaneyn markii hore soo waxaa ii imaadeen oo ila soo xiriireen intaasoo waalid waxaa ugu darnaa waxaa waaye ilaa maanta aa xasuusto aabe ku nool dalka Norway ilmihiisa sidee ula dhaqmayaan ixtiraam darada sidee wax ugu tuurayaan waa ilmo waaweyn oo 20 iyo wax sano jiro ilmo waaweyn oo 20 iyo wax sano jiro iiga sheekeeyay hooyo kaleeto waxay iiga sheekeysay cunug ilmo badan ee dhashay soo waxa ugu daran wiil 16 jir ah wiilkaas 16 ka sano jiro wuxuu rabaa inuu wuxuu rabo cuno wuxuu rabo sameeyo wuxuu rabo qaso waqtiga rabo guriga imaado waqtiga rabo oo guriga ka baxo soo ayada maxaa ka meen karto waxa ma ka sameyn karto waxa kaloo la kulmay hooyo kaleeto ilmaheedii sidaas oo kaleeto 3 gabdhood ee adduunka ka dhashay maanta waxa way xaaladii ku sugan tahay way iska ooynaysaa run ahaantii markay aragtid xaaladii ku sugan tahay murugadii ku sugan tahay ilmahaas dhibaatadii ay ku korisay iyo rafaadkii ay ku korisay iyo maanta xaaladii ay kala kulmayso iyo caasinimadii maanta kala kulmayso ilmihii markay weynaadaan wax xiriir ma lahan wax kii kale ma lahan soo tarbiyadii taasna waxa keenaysa waxa waaye cunuga xorriyad fara badan oo la siiyo koow labo waalid ahaan Soomaali ahaan anagu aqoonin habka ilmaha ula dhaqmi lahayn habka u tarbiyeyn lahayn ilmaheena iyo bay-adiyo bay-o wax kasta xorriyad ka dhigayso qofka bil'aadka xataa hadduu rabo inuu xayawaan noqdo wuu iska dhigi karaa lagu leeyahay hadduu rabo qofka inuu yaanyur noqdo wuu iska dhigi karaa diintu rabo qofka aamini karaa lagu leeyahay run ahaantii Soomaaliya markaa ku nooleen waxa arki jirnay dad haleesan oo arki jirnay dad qamri cabaay waa arki jirnay dad jaad cunaay way jiraan Soomaaliya laakiin dadkaas oo dhan waa dad aadaamka markay maqlaan masaajidkooda galay ninka jaadka cunaay intuu afka iska luqluqo masaajidkiisa galaa laakiin meeshaas waxa la leeyahay cunugii waa dugsigii hoose xanaanadii dugsigii dhexe dugsigii sare meel kasta waxa looga soo dhigaa ilaahay ma jiro waxa rabtida noqon karta jaamacad markuu cunugii galo waa la si dagaalama wuxuu aaminsanaay shakhsiyadiisa qofkii la soo dagaalama waalidkii xiriir ma lahan birtool cunugii adoo kugu soo noqona adoo saameyn kugu yeelana adigu ku baabi'ina adigii waalid ahaan waalid hadaa taa ilmihiisa ku dadaalay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyay cunugaagi waxaa duufsanayo kunkaan cunug ee aan la tarbiyeenin koow iskuulkii la soo dagaalameen ila ilmahaagi xataa iskuulku uu la dagaalamay laakiin adiga dagaal kale ku jirtay adiga jihaad kale ku jirtay ilmahaagi hadduu kuu badbaado oo maasha Allah oo ku noqdo kun ilmoodo waxa fasalka iskuulada iyo jaamacadaha la dhigto aan waalidkiis ku dadaalin soo cunugaaga saameen xaggi iskuulka xaggi bay-ada xaggi Soomaalida oo ku dhex jiray wixii dhan saameen ay kugu yeelanaysaa soo waxa soo saaraysid way adagtahay inaad soo saartay ilmihii loo baahnaay taas waa xagga tarbiyada waxa soo hartay xagga akhlaaqda wadamada reer galbeedka ilmaha waxay bilaabaan ayagu aad u yaryar siiba Sweden waxaa laga cabaadayay ilmaha yaryarka ee bilaabay gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryar oo bilaabay sigaarka ayagu aad u yaryar haday tahay dhaqan xumo
galmo kaleeto gabdhaha Swedishka iyo wiilasha iyo ayagoo yaryar ay bilaabaan. So waxaa laga yaabaa waalid waana dhaqankooda ayaga because dadkan diin ma lahan. So qof aan diin lahayn adaa u maadsoma waxaa laga yaabaa aabe iyo hooyo iyo family miis wada fadhiyaan inay ilmahooda u imaadaan, gabadhooda u imaanayso, wiilay gacanta ku dhagan tahay way baraysaa, waxay leedahay aabe iyo hooyo wiilkan waa saaxiibkayga, hay soo dhawow, cashadii wada cunayaan. Familiga gabadha ninka shukaansanaysa inay barto wax fiican waaye, laakiin midda soo socoto waxa ka daran. midda soo socoto waxa waa diinteena raadi sal kuma lahan. ilmaheena ilmahaas waxa sameeynayo waa ku iskuul waaye, isku waxa waaye isku banooni waaye, isku waxa waaye saaxiibo waaye, isku imaado wada sheekaysto, meel wax ka wada akhristo. So aad wixii saameynay kugu yeelanaysaa maalin kasta markuu cunigaaga arkaayo cunig gabar mise wiil darbi kula jiro wiil kale mise gabar kaleeto. So gabadhii aabaheed iyo hooyadeed markay la casheeyaan ayadii saaxiibkeed waxay leedahay aabi hooyo bye bye, saaxiibkeygii ani caawo gurigiisa isla aadayna isla soo seexanayna, ama waxay leedahay gurigeyga qolkeygu ila seexana saaxiibkeyga. hadda ka hor qof ii dhawaa iga sheekeeyay wuxuu yiri naagta qayfkeyga waxay igu dhahdo yiri maalinta sabtida marka wuxuu yiri maalinta sabtida waxa ku dhahaa gabadhaada yar subaxa sabtida marka shaqaynayso inteegaysa. waxay igu dhahdo yiri ay sheegto waxay igu dhahdo subaxa sabtida marka shaqada aadaayo waxa u geeyaa gabadhayda saaxiibkeed, waa gabar yar oo 13 jir waxa u geeyaa ay dhahdo saaxiibkeed si ay ula seexato, kadib ay ula joogto 8 saac shaqaynayo, kadib galabti marka shaqada soo bagto waa soo wadanaa gabadhayda guriga keenaya. hadaba hadii la dhaho akhlaaq naaraha way kala cud bilaystaan. So qofka sidaas u dhaqmaayo adiga ka guuraayo. Swedishka meelaha ee Soomaalida soo degto mise dadka Carabta ee degaan way ka guuraan. sababta ugu guuraan maxaa waaye because waxay dhahaan dadkan ilmahooda ma tarbiyayaan. waana xaqiiq lian anaga Soomaaliya wax badan waalidka kamuusa fikiri jirin markuu ilmaha wadankan uu ku haystay Soomaaliya wax badan oo tarbiye muusan gali jirin, bi'ada tarbiyan jirtay. hadda laakiin bi'adi ilmaha tarbiye lahayd waa taasa waalidkiina sidiisii u dhaqmooya. waalidku waxa laga yaabaa aabihii inuu Soomaaliya soo aado uu naag guursado, hooyadii kaliya inuu ku daayay intaas oo wiil intaas oo gabdhood. waxa laga yaabaa in aabaha uu siyaasadda ku jiro oo siyaasadii meelahaas uu ku jiro. waxa laga yaabaa inuu aabihii ganacsi iyo adduun uu sameysanayo Soomaaliya oo joogo, hooyadiina ee la daala dhacayso tarbiyadii ciyaalka. soo hooyo kaliya wax ma qaban karto haduusan aabaha garabkeeda ahayn. taas waxa ka dhalatay waxa waaye ornaantii nafsadeydana saameyn igu yeelatay in waalidkii Soomaaliyeed in badan oo kamid xagga dawladda ay u qoran yihiin inaysan isqabin. li'anna hooyadan waxay rabtaa lacag inay soo gasho, lacagtan ama ayada aabaha ha buriso ama aabaha sida idin soo sheegaba ha ahaadaan, hooyadan waxay rabtaa inay lacag soo galo. maadaama ay rabto inuu lacag soo gasho oo hadii laga yaabo biilka in laga goosto maqnaashaha aabahan daraadiis, waxay sameynaysaa inay iska bixiso aabahan ee dhahdo ismaba qabnaba ani asiga. so taas waxa ka imaanayso xaggi tarbiyada waxa ka imaanayso waxa waaye dadka aan noolnahay oo dhaqan kale naga aamino. waxa ka imaanayso waxa waaye wiilashii oo weysan qudwo ay ku daysadaan, aaba ay ku daysadaan. waxa ka imaanayo waxa waaye dadka aan ku noolnahay oo ka aamina islaamka inuu yahay sidoodo kaleeto, li'anna qofkan saambo ku nool yahay isma qabaan ayaga dadkan ayagoo isqabin ee isdiiwaan galiyaan isla nool yihiin ilmahooda isku diiwaan gashtaan. maadaama sidaas ay ku wada nool yihiin ayaga anagana hadaa qorano saambo waa isku nahay ama isma qabno,
hooyadiina britol ilmo kale ay dhalowso taasna waxa waaye saameyn weyn waxay ku yeelanaysaa mustaqbalka caruurteena so adina cunugeyga ina tarbiyeeyo waxaan ka faa'iidayaa oo meesha ku tarbiyeeyo hadii waalidkii hareerahayga joogay bay sidaas u dhaqmaayaan hadii aabayaashiiba mas'uuliyadooda aysan qaadanaynin akhlaaqda